I was 10 years when I received the care from Imam Nawawi Orphanage Center, and I finished my secondary school in 2003 at Imam Shafi'i Secondary School. Then I joined university, especially Banat University Faculty of Education, Biochemistry Department. After I finished my bachelor degree, I started working as a teacher. Especially I was teaching biology and chemistry from different schools, such as Imam Shafi'i. Also, I started a few months ago my master degree from Kampala University, Public Health. Now I finished first semester from that university. I believe that this college changed my life, and I believe everyone who supported in this college, may Allah provide him, and I want to thank everyone who supported this college or this center, and I would like to request anyone or everyone, especially those living outside of the country, to give us support for this college. Imamu Nawawi Agoonta College sidaad u aragtaan xarunta Agoonta Imamu Mas'uud ee Gaalkacyo. geedaha ka dhex baxay college magaciisana waxa la yiraahdaa geed talaal ama geed hindi sida Soomaalidu u taqaan. halkan waa beerta college-ka Imamu Mas'uud. waxa ka dhex baxay waa yaanyo oo lagu abuuray hadda waxaana wali ku socota faliin. kaasna waa solarka system solar oo koronto siiya college. solar siiya koronto guriga siiya macallimiintii waa macallimiin ka mid ah macallimiinta wax ka barto college. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمتي أغونتا لو قداي دولكي لو قدا حمورتا جمعية إمام النووي حرمتا دريالكا أغونتا مدوب funded by Mahmoud Foundation USA. أنا معي وحال هذا عبد العزيز شو محمد جدي waxaan deganahay waddanka Mareykanka. waxaan ka mid ahay dadka taakuleeya oo u taagan arrimaha agoonta iyo ballaarinteeda iyo wax ka qabadkeeda iyo horumarinta mashruuca agoonta. marka su'aalahaana waxay naga anfici doonaan inaan horumar ku sameeyno xarunta aan weyneyno aan ku darno xarumo kaleeto ardo badan oo gobolka joogta oo agoona lagu soo daro. marka waxaan ka codsanaynaa inaad sida si waafi ah inaad su'aalahaas uga fakartaan jawaabo rasmi ah aad siisaan oo ku salaysan run iyo daacad. waa ardayda college-ka Ibn Mas'uud markaan waxay ku sugan yihiin dugsiga Quraanka. وجيه فرحان الله كما هو إن شاء الله. تجلس قدام
شاشن جروب أيوة فدين شاشن قف خفاف بيرسل يبش أسنى سوالان هذا أيوة كذي أغونتا إمامو waxaan filayaa dadaalkana inaad si la walaabi doontid mar hadda aragtay meesha hadda baashu ay marayso iyo heerkay soo gaareen intaan inay fursad u hesho maanta inay wax barato dadkan haddaysan maanta halkaan loo dhisi lahayn waa garan kartaa bedelkeeda meeshay ku sugnaan lahaayeen bedelkeedu waxaa weeye inaysan waxba baran inay jidadka taagnaadaan ay dhagaxa tuuraan in markay xoolo ay soo koraanna ay noqdaan dadka ka mid noqdaan dhalinyarta rabshadaha ka qayb qaato oo ama magacyada mooryaanta iyo waxa la markaa lagu magacaabo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.